براامبركي ما يتوه hal سمي qof aan jecelahay baa su-aalna weydiiyey wuxuu yidhi markaad timaadeen Faadumo qurbaha maxaa idinku qosol badnaa anoo alma ag maraya intaan migrationka leegay ag marayo isfuray albaabkii migrationka dib u boosreedaanka furan ka cararay waan ku figaadhay markaas ay igu qosol badnay albaaban qofna heeno iska furmayo markii ugu horreysay aan arkay bee aniguna albaabkaa furmaya qisa iga soo martay oo hooyo ay odhan jirtay ilaahay albaabadaha kuu furo dadka hooyo iyo aabaha kaaga dhigo suuqii markaan marayo albaabkii wuu iska furmay qiseentaan hooyo waxaan ku dhahay hooyo ducadaadii ilaahay wuu aqbalay albaab kasta markaan hormarayo iska furma waa albaab computer furay ducadana ee duca qisadaasa inay iga soo furtay martay moogta qolku waa madax shidnaa imisoo shidnaa qolku waa madax kulaha حمدي بقى marxaya حمدي هو حيرامد وي ميراث جيفتا حربتا ما انت لو شيكيو حمدي حيرامد qaar والله baa waa guryaha xeeraamo nagaga shaqaysta oo والله حيرامد caajisay والله oo 8 daqiiqaba horta noo hadhay dadka 8 horta daqiiqo dadka kadib waa la horta kala seexanaya dadka xayraaminta uguna af Soomaali xun moogta dadka xayraaminta iska ka daawadana ugu af Soomaali xun ku soco haddaad maqasho qof xayraan qof ilaahay wax siiyo ku soco xitaa ku soo qoray ma jirto carruurkaas soo hela yaa waa xayraaminta wey okay 3 su'aal baan ku weydiinaya Faadmo Foosto ku soco qaali ku soco hana igu ruqaansan markii ugu horreysay ee aad nin jeclaatay slow kistii lagu siiyey how you feeling kow hadeer aban moodayba waaya yaa ilaa timihii madaxaasaa isaga istaagay ku bismillaahi soco raxmaan raxiim markii ninka adiga oo ma aragtay nin dhan oo madaxa timo kule oo 4 lugood leh oo socda oo qol jiifa kugu sugaya aad u gashay adoo siduu ilaahay rabbi subxaanahu watacaala weligaada nin arag maxaad dareentay markii labaad markii saddexaad yaa salaam baa lasoo qaray markii saddexaad weligaa intaad dhakhtar u tagtay oo koonfur iyo galbeed lagu kala geeyay how you feel saddexdaas su'aal iga jawaab markii saddexaad dhakhtar aad la kulantay nin ah maxaad dareentay dhakhtar يعني caadi iyo dhakhtar nina doctor weliga inagu dhakhtar nin lamaynaan kulmin de dhakhtar dumaraan la kulanaa marka qurbaha ma kale lama dooran kartid markuu nin dhan oydan waxba isoo ahaynoo cad uu maaragtay 5 farood farxaleen kula soo galay ma diiday ma iska balantay ma ka noqotay maxaa samaysay waayahaye ta koowaad baan ku soconayaaye slowkistii u horreysay waxay ahayd 14 sano meelahaasaan jiray aan u malaynayaa wuxuu ahaa jacaylkaygii ugu horreeyey waxayna ahayd habeen aad taariikhda u gasha taasi waa taas tan labaad qofkii u horreeyey oo gadhya gafuur leh oo qol soo galay oo muusahayga ilmahayga aabihii qofkaan adduunka ugu jecelahay maasha allah waxaan ku guursaday jacayl waan la aqalgalay habeenkaas waxayd habeenkii iigu adkayd laakiin markuu soo weesaystay 2 ragcadood tukaday anigoo baqaya ducana akhriyay ma ragcadaad xasuusateenba waxba idin mahayna ku soco ilaahay cabsidii uu iga kaxeeyey qodobkaasina qodobka labaad bay ahayd qodobka saddexaad doctor nin ah oo aan la kulmo doctorkayga ilkaha weeya waan garta taasina waa iska caadi waa normaal laakiin doctor dumar oo nin ah weligay lama kulmin marka doctorka ilkaha kuu xidhay afka ma kaa xidhayo face mask ma xidhay mise afkiisa furan buu ilkaha ku hagaajiyey amay uu xidhay face mask ilaa haddana waan la macaamilaa doctorkayga 2 sano waad ku buuqday dee qiiq baa afka ka dareema saas uu xidhay may marka uu ilkaha maydhayo oo kale ilkuhu anigoo ii xidhan yihiin bishiiba hal mar baan la kulmaa markuu ilkaha maydhayo mise markuu tijaabinayo birta oo kale caagba iigu jiro uu giijinayo ama uu iga bedelayo waa caadi laakiin hadduu ilkaha maydhayo maca khafaskiibuu xidhaa wuxuu xidhaa dharka isku sidayska ah wuxuu xidhaa indhaha bahalkiibuu gashadaa tooshkiisuu ilkaha uu arko okay su-aalaha si fiican baad uga jawaabtay maaragtay xaajigaagan oo hadda ku qaba slow kiska khatar buu ku yahay soo ma
ma inaan kuu sheegaad rabto kuu sharaxo kuma aha maye soconaya please give him my number. waa ku number laaf walaala maxaa lagugu bixiyey Faadimo waa masda Faadimo Foosto waxa la igu bixiyey maadaama aan ahay 1 mitir gaabanahay buuranahay isku jiro xaggan wax u baxeen xaggan wax u baxeen sidaa la ajliga Shakiirana ay aragtay itaqaanay weligeed sidaa la ajligeed ayay Faadimo Foosto igu bixisay haa hey waka Shakiira ma qobeysato ciidka ciid baan qobeystaa walaal mana ura mana unsado haye anaa hadda su-aal i weydiin doontaa aqrigaaga i weydiin doontaa adiga horta maxaa shuun lagugu bixiyey qurux qiimo dharar caraf jir qurux badan baa la iigu bixiyey shuun dheer markii aad shuun inuu wax kale Soomaalida qaar u yaqaanaan aad maqashay ood ogaatay magacaagiina uu ahaa maxaa dareentay waxba ma dareemin because dadka waxba igama gelin binaadan lama qanciyo aniga hooyada iyo aabahey baa ii bixiyey shuun xirsi shuun dheer baana laygu yeedhaa wax ceebana uma arko waa magacaygii anigu markaan koonfur tagana batuulaan la baxayaa iska bedelaya waayahay maalintii ani kuugu shuun xirsi farxadda asxaabi badnayd aniga shuun xirsi baa lay dhahaa laakiinse shakiiraan la baxay because dad badan oo maaragtay reer koonfura iyo reer puntland baa waxay u yaqaanaan shuunka alaab kale u yaqaanaan saa darteed baa isaga daayay marka maalintii adduunka ay kuugu farxadda badnayd maalintee bay ahayd maalintan intaan maka tegey oon baytullaahi sidaa u istaagay aan idhi labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wannicmata laka walmulk laa shariika lah maalintaas igu farxad badnayd maalintii kuugu naxdinta badnayd cagsigeedii maalintii igu naxdinta badnaydna waxay ahayd maalintii intaan aan uur yeeshay anigoo intaa oo sano ilmo sugayey aan ma aragtay xaajigiina kala tagnay aan islahaa ilmahaagaas ka weheshan doontaa markaan bishii 3aad gallay dhabarka laygu dhuftay ilmihii iga soo dhacay dhakhtar galan 2 isbuuc ku jiray markaasay igu naxdin badnayd ninkiina waan kala tagnay ilmihiina waan waa cidlaan soo istaagay maxaa dareentay Shakiiray markaa wax halkan lagu soo koobi kara maaha hadda intaan ooyo hurdadan way iga tegaysaa ma iga aamusi kartaa oh my god waay ka raalli walaalo intaas su-aashaa ku weydiiyey dhibaato male sorry walaa qof ka waran sugaya inuu ilmo dhalo 13 sano ilmo dhalin oo bishii ugu dambeysay oorintuu yeeshay ilmihiina ka soo dhacay ninkii kala tegay nolosha mugdiga bilaabatay Victor Zinjibil my cousin in the building soo dhawow markaasay iigu badna kadib intaa wixii ka dambeysay maxaa la dhahaa Dr. Sanjibil garoobnimadayda haa wiil walaalkay weeyaan waxaan 3 sano kadib hadda 3 sanaan hay baan ahay bay carmal isku tumatay layma tusanin dhanba ma arki karo 52 sanaan jira ilaahu cumar kulligiis adaa jira alxamdulilah ukuntaan badsadaa ukunta badso aamiin hani loof aamiin dadku waa dad wada wanaagsan meesha ku jira aamiin aamiin hay su-aasha waan kaaga jawaabay wax kale may weydiinaysaa Faadum Foosto don't cry bitch waxaan u caayaya ma idiin sheegaa waxaan u caayanayna ooyin waa ogayna oohin ku maqan tahay qalbiyee ha ooyin ilaahan kugu dhaariyo ina bashiir walaal beentay maha runtay weeye sheekada hadda ka sheekeynayo wixii kaftanay wixii kale waa kala gooni laakiin markaan sidan oo kale hadda su-aalaha isu weydiinoo kale wixii la isweydiiyaa waa run magaca dabcan run ma aha oo shuun aniga layma yiraahdo eedadii baa shuun layidhaa hadda kor baa uga sheekayay Faadumo aniga magacayga saxda ah shuun ma aha
ma fahantay laakiin inta kaleet waa run labada kale waa run kow waxay igu farxad badneed markaan beedka ilaahay tegey 27 rabadaan baan soo cimraystay alxamdulilah inta kale waa run marka shuun laga reebo alxamdulilah wax walbana waa qadar allah maasha yafcal ilaahay baa wax walba bixiya ilaahay subxaanahu watacaala samra buu yidhi samrun jamiil samirku waa jamiil 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 waxba maaha waxaas waxba maaha dhibaatada kale ay haystaa waxay taadi ka qosliya asxaabay nin haddaan la sheekaysto Shakira, hee intaadan naga qoslin kunkiina iyo shantiina boqol hal mar faataxada u mara oo si niyada ugu duceey wallaahi way taabatay dhan wara xabiib dadka su-aalahan waan weydiiyaa laakiin markay arrimo saasa ka hadlaan ma aqaano aniguna way taabataa si gooniya si niyada ugu duceeya inuu ilaahay insha allah Shakira awlaad saalixa siiyo oo baariyo oo degdega oo ku ilqabowsato oo ilmaha yara ka saqiiray ee ku sabartay awilkiisa iyo kheyr qaba inuu ilaahay siiyo waan kaa raaligeliya haddaan kusoo xusuusiyey qaali ku soco dib male marka dhibka ay haystaa waxay tahay ugu dhib inta ugu badan ba waxay tahay dhibaatada jirta aamiin walaalo aamiin kuwiin badaraan aamiin hun aamiin dhibaatada ugu badan ba waxay tahay marka nin baa isbaranaynaa sawirkiisa suun baan soo siin profilkiisaan geli waxa ii soo baxaysa dheg qalloocda suul dheer waan baloogi mid kale ay dhihi haya abaa maxaa isla haysaa waxaan dhihi sawirka soo tiro markuu soo diro aan sawirka soo dhaweeyo wax unbaa si ah mid taagan ii soo diro markuu mid taagan ii soo diro haddana waxbaa si ah 3 sano 95 ka badan nin wuxun baan saa u baloogay waxay cajabiyey waan waaye akhiiran maxaan isiri group adkaata isaga bir iska sheekay iska qaraaxaysa bas shaqadaada sheeko salaadaada intaa wax dhaamalow Shakira su-aal baan ku weydiinaya weli intaa tiim adkaati ka sheekeynaysay inaan intuu kaa helay ma ku soo raacay sheekana ma la bilowday walaa cadadna walaa xisaab waay wuxun bay haayeen mise rag madaanyare haayeen waxay haayeen dad wanaagsan oo mise والله يا بالله بقول أنا أقول سهري ويقول دادس هذا ولا الكلام طيب بسنك horta ma idiin sheegay muxidiin baa isla hadalay salaamu calaykum mobeena wallahi kuma darayo markaasaa waxaan ku yidhi xaafadda guriga aad sheegaysa yaa kasoo horjeeday bii guuri saan ku ree hebel baanahay kulahaa qayla waa baadigiibaa waxaan ku yidhi 2 saac baan qaylilay way aaminsiin waaye marka qolkaaga wuxuu ku fiican yahay dad badan baa iska helay wallaahi walaalkay waxaan ka helay walaalkay muxidiin baan ka helay wallaahi wallaahi bilaahi waa dhibaatada makeup ku keenay weeye waxaas ha waan fool xumaan jira soo maaha nacal shaklag nacalada jooji nacalada ilaahay naga fogey ilaahay wallaahi. waa ku dhaariyay markii isku keen dambeysay xataa qaangaadh miya ahaa may wallaahi aad dee marka saa darteed laysma garanayo berigii duruufta walaad basa umaad caddaan jirin duruufta ina jacjac aad iyo aad adoo yar baad naga tagtay soo maaha dee haay walaal saa umaad caddaan jirin laftigaagu muxidiin ma ku galaa igu soco waa caadiya koley waa biyihii jigjigaas ay gelaya aniga lafturkayga ee waad u dhalatay baasha aad iyo aad tuula waxaan ku Shakira nacay royal baynu ku ruqaansanaynaa 3 su-aalood weydiiya ana 3 baan weydiinaya maanta waxyaabaan idiin sheegay xagowka ah dadka aan meeshaas ku baranay hadda muxidiin maanta igu horeysa mise maalin hore ii sheegtay horta Shakira maalin dhowdan kaaga sheekeen kur walaalkay baan ka helay haa Shakira ii sheegtan maani haa isma yaqaanaan dadkani meel ay degan yihiin meel ay ka yimaadeen qabiil iskuma iman waa sidan baa isu keentay intiina hoos joogteena waa tinimadaas baa isu keentay mid aan naqaano iyo mid aan aqoon lasma wada baran karo oo bini'aadamka ma wada baran kartid qof laakiin sharaf iyo karaamo iyo ciisi aa ku wada joognaa aad iyo aad ku soco ee waa qaano wallahana Shakira qabiilkeeda aqoon oo muxidiin qabiilkiisa aqoon oo fahiima aqoon oo intaa basra aqoon oo royal aqoon oo aanan wareysan oo aanan weydiin haddana waan wada jeclahay walaalada qalbiga aniga ku jira muxidiin waa iyo ismaqaan intaa tiimadkaati lamana hoos joogtay sheegayo aniga muxidiin waa unug waa iska saynaa unug
unuka qabiilkeena waan ka sayna lana sheegin shakiiray royal ban si toos ugu ruqaansaneen adna saddex royalna su'aalood waan weydii naqaanaa ana isaga saddex afkiisa ka qartay habeenku la ciyaarayay muxuu duqi dhifiq shakiiray soco. royal ka waran acuudu billaahi min shaytaan rajiim maan ruuxda joogin anigu 24/7 markaasi kursigan ku fadhiya dabadii kulaad xageen geyn ku ruqaanso saddex su'aalood madaxa ka saar okay royal hal su'aalan ku weydiiyey walaal kursiga waxaad ku fadhidaa 8 saac anu markaan kula saaranahay qolka gurigaan hagaajiyaa waan baxaa fadhigaan fiiqaa musqushaan dhaqaa cuntadii berri baan diyaarsadaa xaggaan u socdaa halkaasaan fadhida furtada kuma kulaata miya walaal ima kulaato meeqay kulaato laakiin degdega uga jawaabin dee sug midna kugu daray bal waxaad weydiisaa kursigaas inuu yahay kii dhexda ka duleelay iyo in kale uu kaasho beermaan maa ku hoos yaalla kursiga beermaan wallahi waa qosla wallah su-aasha labaad waxay tahay marmarka qaar maxaad u neerfo badan tahood neerfaaga u kacsan yihiin ood 99 u garaacdaa ood isaga boodaa shimbir miyaa adoo yar ku martay ma lagu harag saaray hadda koor mar jeel ma ku jiri jirto miyaad waalatay ma weligaa ma lagu xidhay ma lagu dilay ma intaad hariibtay baddi milixda indhaha kaa gashay maxaad waalatay stresska waxa keena naag la'aan qaniyo la'aanta keenta jeel waxa jira maraykanka ku yaalaa qayb waxa lagu maba dhammaysana saad jeel iigu sheegtaa su-aaleyga ma dhammaysan dambe ka jawaabay suudan ku wadaa jeel waxa jira maraykanka ku yaala qayb dumarkaa lagu xidhaa qaybna ragga oo dadka xabsudaayinka lagu xukumo markaas sanadkii hal maalin baa la soo daayaa gidaar baa u dhexeeya sanadkii qof kastaaba maryuu ku seexan jiray hadday kastuuma noqoto hadday garan noqoto dhiirkaasaa la iskaga turtuuraa kiinsi xaaji khadra daahir maxamed ciise mursal muuse waa lasku tuuraa ma fahamteen keliya tashiirkaas la ursanaya waay markaa walaal waxaan ursaday xitaa ilaa hadda ma arkin bir hore ay ugu dambeysay marka normaal ay u kacaa marka ma fahamta hadda su-aasha kalen ku weydiinaya waxay tahay marka sugul horta wax yar sug biyaa cabaay suuligii bay ku jirtaa shakiiri yaa ila mida gacanta soo taaga may walaa suulig kuma jiro waaya doctor shibil wuxuu dhahay dumarka waxaan ku weydiinaya walaa dhegeyso doctor shibil wuxuu dhahay waxaa dumarka nacay markay soo gabadh ba siin waayeen maasha allah ku soco muxuu nacay wuxuu dumarka waxaa nacay markay royal ay gabadh siin waayeen buuri yaa dumarka waxaa nacay buuri markaan arkay inay royal gabadh siin waayeen marka royal numa gabdhahan qaybinaa aduu saasuu dhahay caguu leeyahay ku soco shakiira ku ruqaanso su-aashaadii u dambeysay weydii okay su-aasheeda u dambaysa waxay tahay war dadku may waalan yihiin suuli gala suuligaa ku jira shuban allah idinku riday jikadaan taaganahay barkada biyaha ma idinku qabtaa waxa dhacday maya noogu qabana ku soco waxaan ku weydiinayaa oo kaleeto weliga intaad reer u martiday reerkoo fadhiga fadhiya caloosha ku xanuuntay musqushuna ay ugu dhowday fadhiga rasaas ma garaacday rasaas waxay ugu danayd maalin baa reer baa u martinay reerku reer aan ixtiraam iyo qadar naga dhexaysa bay ahayd ninaan saaxiibnay baan israacnay maalintii o dhan buu shaqaynayay sharbaado ama sagsaan uu hal wiig ayuu xidhnaa deeta fadhiga watanka waxa la iska saaro aad bay sagsaantiisu u qarmuunaayeen dadkuna markaa ma kala garanayaan sagsaantiisu urayaan islaan iyo odayaal iyo dad sharaf labaa la fadhinay qolkii wuu isxidha maalintaas igu naxdin badnayd waxaan sameeyoon garan waayey odaygii mar sankuu qabsadaa islaantii mar sankay qabsataa yaa cuntadii meesha iyo sharaabkii lasoo dhigay waa cuni kari weynay maalintaasay ugu darnay qolka cadar ku shida horta miyaanay jirin bahalkii yaro gift yaro cadara qolka saa loogu buufiyo raadiyo ku shida qolka cadar waaye royalow si toosa saddexdeedii su-aalood baa ku hadhay dalma u jirciyaa soona u adkay oo miskiine maya u adkay maya u jilci maya meel dhexaad uga dhig su-aasha koowaad
imise gabdhood ayaa tiimadkaati kaa soo raacay iyagoo sheeko iyo shukaansi iyo jacaylkaa raba tii iigu darnayd way badan yihiin laakiin tii iigu darnayd waxay ahayd inantii dhowr jeer bay commenti kusoo qortay walaal sheeka haya intaa kala soo xiriira walaal sheeka haya inte dhowr habeen baa arkay marka follow back baan siiyey whatsappka ayay soo dirtay waxaan is inanta ka neefi whatsappkii baan ka bahleeyey deetana waa hablaha sheekooyinka inta badan kusoo xidha ubax baan siiyey ku xidh marka way la soo hadashaayo deetana inay daawanayso waa macquul hadda walaal ubax baan kuu soo diray walaal cid hay soo diray adaan rabaa inaad sheekada iga dhegeysato yaa walaalay waqti ma hayo way soo garaacday markii dambe deetana sheekadaada soo daawan koodi inantu FM2 bay iga garaacdaan codkun bay gaabsataa naa walaalay laguma maqlay maxaa kaa qaldan yaa bar sheekada bilow sheekadii waa bilowday markii dambe waxay ugu tiraniyo adan ku rabayba taasay ugu darnay muudaa hore ka saaran waana ka soo laabtay hadda inay daawanayso wallahi taa waa macquul inaanan been ku darin baa magaca ilaahay waa ka naxayba marka ama codka ay kugula hadashay baad ku qiimaysay mise waxay kuu sheegatay inay kaa heshay oo xidhiidhba kuu bandhigatay ama hadda sheekan isku ogeyn ay qofku inaad wax isku soo gashaan moogtaa haa sheeka isku ogeyn inay sheeko isoo dhiibayso laakiin bad kale ila gasha waaya su-aasha labaadan ku weydiinayaa waxay tahay markaad waddankii joogtay ee aad sheekada bilowga ahayd anigu badanaa maamada jacaylkaan hayo aaggaa laygama waaye markaad waddankii joogtay ee sheekada bilowgiisa aad ahayd laba gabdhood weligaa intaad isku shukaansatay ma isla kaa ogaadeen ama adigoo gabadh gurigii kusii dhaweynaya koox ma ku qabatkureydii xaafaddu ma ku qabatay waa laba su-aalood isa saaran maya aniga waxay igu darneed un maalintii wiilaan saaxiibnay sheekadana waa ka sheekeeyey waa maalintii fartaasina igu jabtay maalintii wiil aanu saaxiibnay oo in badan aan isku caraysanay nala heshiisiiyey deetana habeenada kamid a anagoo maqaaxooda fadhina meeshii nalagu heshiisiiyey buu telefoon buu iga garaacday qofkii hawshii uu ka rabay uu ka dhamaystay gurigii markan tegey ama xaafaddii markan tegey ayaa dar ilaahay anoo telefoonka iska baarbaaraya aan nambarkii arkay waxaan sii nambarka markaa ku soo wacay inantii markaa ku celiyey inantii shaaki iyo shukaansi bay la gashayba inantuna waa ninkii nala heshiisiiyey saaxiibtii oo weliba markaa arrin guuri baaba ku heshiiyeen oo arrimahooda waa dhadhawaayeen waa la sheekaystay anu ma ogi marka dee tii iga raacday oona ka sheekeeyey waxaan malaynayaa 500 kun oo qof aa daawatay waxaa ka sheekeeyey hadda bil ka hor baarta tuugina weli waa la sugayaa iyadoo dhammaystiran waa sheeko waalan oo qosol badan markaa sheekadaasaa igu yaabka badnayd igu dhacday iyo tii baastoolada labadaasaa igu yaabka badnaa aniga wixii caadi igu dhacay si xaqiiqa waay su-aasha u dambeysaan ku weydiinayaaye habeenkii inantaada yar ilaahay iska daaya ay kuu dhalanaysay mala dareemaysay xanuunka hooyadeed dareemaysay markay hooyadeed foolanaysay wallaahi habeenkaa ma seexanba oo soo jeeday taa macnaheedu waxa weeye waa la dareemaya maxaad ka fikiraysay calaasha ma inaad ku faraxsanayd ilmahaagiio soo socda ma inaad ka naxsanayd gabadhan xanuunsanaysa saad dareemaysay maxaa dareem fiilinkaagu muxuu ahaa fiilinkaygu dee wuxuu ahaa fiilin farxadeed maasha allah good news buu ahaa aabuba noqonaye good news buu ahaa wuxuu ku yidhi wiilkaas walaalkay ah oo ugu qorantahay Dr. Sanjibiil waa wiilkaasinkeegaas ka baro waa from USA wuxuu ku yidhi haddii tolla yahay sid idinku sheekeynaya wuu daalaya royal gabadha lagu daray buu yidhi mid Maraykanka uga keentay jirada taraag wadata taasuu rabaa laakiin royal halka farsamee gabadha loogu dari karayo waxa weeyaan Dr. Sanjibiil wuxuu wataa boolis wey waa boolis mataqaanaa Shakiira sheekada aan ka sheekeeyay ah gabadhii ninkii codka macaanaayay gabadha loo geeyay sheekadaasi runtii waa sheekaan anigu sameeyey waxaa noogu talagalay royal
ninka toobkee jaafa juglaha waa royal waxaan ugu talagalay inuu meesha ka kaco hadduu saa usii joogo si uu shukaasanayo waxay gaadhaysaa xilli uu guurka ka baqayo sidiisaa ku gaboobi doono marka isagaa ku karbaashayay sheekadaas ilaa haddana muu dhaqaaqin hadduu dhaqaaqi waayo sanadkaas 23gan hadda dhilaashay hadduu dhaqaaqi waayo gabadh baynu usoo shukaaminaynaa waynu u keenaynaa waynuna u guurin doonaa ma igu raacdeen timadkaatayo waxaan sheegayaa anigu reer baan ahayna waxaas baane faadumadeeda qaadidin ma dhigte ku socda aniga hadda xaajideedu way daawanaysaa ka daaya gefka aad iyo dee ha ku guursato eeg ama ninkaa wax guursada ama gabadhaa wax guursata wiilku markuu gabdhuhu markay shukaansigu uu bato iyagaa dhaha na guursada xaafadii u tag marka inaadan dhaqaaqin waa batana way ku aragtaa gabadhu iyadu ha ku guursato hadda casri baaba lagu jiraa 23gii baa lagu jiraa dumaashihii haddaadna maqlayso ninkaa halkaas jooga ee habeen kasta noo sheekeeya ee nagu wareeriya Dr. Sanjabiil iska celi Faaduma goorma lagu furayaa buu ku yiri inuu ku guursato acuudu billaahi min ashaydaani rajiim xasbiya Dr. Sanjabiilku miyaan muur saare balo garayn Faaduma goorma lagu furay waaban balo garaynayaa qumayga qumayga adiga habaaraya balo garayno karto aniga gabadha siinaya hadduu ilaahay yiraahdo waxay siinaysaa walaal acuudu billaahi min ashaydaani rajiim kuwiina waan balo garaynayaa waxay tiriyadana ma taqaana walaal anigu gabadh lacag lan rabaa royal cuud waxay tiri ilmihii hore la igu qaliyay duceeya gabadheeda ma ku siiyaa maanu gabadh lacag lan rabaa gabadh lacag leh ya gabadh lacag lan lacagti ku qaaday kuma dhigi kare Faaduma waan kula kaftamayaa buu ku yiri ogow yaa gabadheeda waa diiday gabadhaada wuu diiday walaa gabadhaada nin kale allah u sakhiro xaasid weeyaan Dr. Sanjabiil ku kaca waa shamsi ku qaada waa shamsi waa dooxaha iyo kuwiin labadaaba waa shamsi kuwiina waxay tiri ninka iska soo furay ninka hadduu ku furo anaa guursanaya ninka banaag buu waayaya balaayo dhukurani maya isagu ma waayayo laakiinse anigan isagoo kala helayn isaga ninkaaga anaa boqole si niyada iigu duceeya inaan isku waarno ayay awoowe isku noqono isku agabowno waxaa kaloo iiga ducaysan inaan Shakiira iga arag hadda waan uga sheekeeyey keliyaata laakiin Shakiira ma bari doono odagayga mana tusayo waxaad samaysaan in awoowey ayay isku ag noqono isku dulgabowno oo sidaan hadda isku jecelnahay jacaylkayga u waaro khilaaf dhexdeeda soo gelin walaal waxaas waan ka xanaaqa waaba nacbahayba nin igu horxayeysiisa mantag ba ay qabto sidaan isku fahansanaano isugu kaay wallahi ma jecel Faaduma sida kale aan ku jecel walaal showga iga daa show of course I don't like wallahi inaanay show ahayn wallahi show ahayn habeenkan dumaashaha soo fariisi habeenkan ka warama dumaasho soo fariisiyo laabtaas kale ugu qabto maalintaas ay ugu dambaysa live-kaaga bullshit anu qaado ana tiiriyay taabilow baawatanaama nolosha isagu tafiirayo cishadii timaad uu sii tarmayaa loofaan idinla dhici lahayn anaguna loofaan idinla dhici lahay wala inay loof iga qaadeen Shakira waxay jiisaa dee maxay tahay anagii oo masaakiin oo waxba halkaa helin baad naag laabta saaranaysaa tan Faaduma qasaaladay royalow Shakiir adigana kuma rabto adigana inaa Muuse ka sheekeeyo ma rabto masayraysaa maxaa baa adigoo Faaduma qasaalada nin baad igu horxayeysiinaysaa isaga wuxuu naag baa laabta saaranaya maxay tahay waxaas waa qurun bee meesha ka kaco adigu hore u soco maxaa waan soconayaa laga ilaaliya mid keenso adigana markay wax keensadaan deha wallahi heesta wax qaada guuleysin baa qaada taaj maxal baa la dhahdaa
waxaa loo sameeyey wiilyaraan aan isku xaafid ahaan jirnay arooskiisa loo sameeyey I love that song fahamkaa anna tiiriyey taabilow laakiin royal waa keenin dumaashida miidiyaha keenin noloshaati xiisaagu taab igu tafiirayo ciishadii timaad uu sii tarmayaa sii tabareelaa oo 10 jir baan sii naa dumaashi xaajiga libaax ku dhufo ama loof wuxuunu dir tajaay todoba yaa heestaas markaan qaadayo xaajiduna indhaha isaalto yaa taxanajaay todoba yaa oohina ay hayso no oohin ay hayso xaajidida social mediana keniyin kalaa ama yaha keeni waxaan ka cabsanayaa saad u leedahay waxbaan keenayaa inaad fartuun balbalaarka keento sidee weyna maqlaysa kursigaba inta lagugu fadhiista kursigaba lagugu fadhiista wayna xaaji bataan dumaashi nagu qaado fikir wayna xaaji bataan sidaa dowladda soo celiya الله وقصله والله الله waxaan ku ana xabad libaax oo kala ay dhiman waan seexanaya marka hadii xabad kale libaax la igu dhifto waan seexanaya libaax sati shakira libaax soo bixiya rooy libaax waa oran jirteen shakira libaax xabad libaax oo kala hadii la igu dhifto horta waa in la buuxiyo konton ka kun markaas aan seexanaya hadii kale ma gamayo shakira libaax waa iska daayay يا يوري بالبلاد كوغا ما تريسا لغو سو قرا يا حالي بالبلاد كوغا ما تريسا waxa la isoo isagoo lama taqaana agteeda soo fadhis kursigeeda kursi la dumay kursiga dhulka yaal labadoodii on faar ka duubay muu salaam walaashay astaghfirullah basray muudka adiga ka soo bax basrada jirooylo qof kale soo saar anu dhiig ka qaadno iyo dheecaanka doctor sanjibiilkaaba soo saar doctorka soo qabo deji markay maqashay soo haday naa doctorku waxa weeye nin gamerka ugu weyn weeye tiktok maalinta ma soo qabsado hoos buu comment ku dhigla basray buraanburkii aan kuu tirnay xagaad la aaday maaniga ha idinka waa beega qaban idinka ma soo caamilay adiga royal idinka ima soo caamilay soo qaraaba kiilay aga idinka naga qaban waay siida hadda waxaa fadal kale aan joogaaye waxaa inaan dhaho horta waxaan doonayaa aan asxaabi la noqon rabay xiriiro wadi fahmi weydeen calaa kulli xaal waan ka soo noqon doonaa waa idin mahadcelinaya dhammaantiin cabdiqaadir royal faadumo shakira oon aad ugu haysto faadumo maasha allah marka haddeer waxaan maqlaayay isagoo gabadh leedahay waxbaan duubanaya cabdiqaadir leeyahay lama duuban karo marka walaalayaalo waa rune dee dadku markay sheekeeyaan haddii wixii la duubto meelo kale la geegeysto oo dadkii dhagtooda la dilo ma fiicine inoogu sidaa cabdiqaadir ugu diiday dadka haloogu diido duubashada iyo meelaha la gegelinayo insha allah saasay ila tahay haa maxaa yeelay iyaan soo noqonaan rabnaa waxyaala kaa noo dhiman haa marka in wixii sidaa loo dhegeysaa iska fiican laakiin haddii intii la record garaysto maayna hadda lama duubi karaba qofkii isaga channelkiisa hadduu isagu dee channelkiisa dhibaato la rabo wuxuu intaasoo dhan ku dadaalaya qofku annagu ma rabno qof inaan dhibaatayno qof kasta ma jecla wuxuu ku dadaalaya in dhibaata kasoo gaadho laakiin waa loo sheegun haddii qofku dee uu maqli waayo waxa waaye hadda xitaa anu markii maan fahansanay iska nayuu baan ahaa iska mardhoofkaasaan iska ahaa maalintii wiil baa igu dhahay ma duuban karaa haa maan iska idhi waxa dhan ma fahansaneenba geemka dhan soo socdo marka weli wuxuu dhahay brandburkaaga haa marka hadduu dee brandburku iska public ahay waa caadi is okay wax runa wuu ahaa may public ma ahay ku soco huna xabad brandbura basra ii tiri basra yuusufey maya ha kuu dambaysato shakiiriya tii royal aanu kaa sugeynay ducada ahaydee ammaantaydan kuu dirnay si toosa ugu ruqaanso
gabadha wadankayga bay ka timid waa reejka gabadha la soco dhiigayga wey naagta tigadii ku qaaday kuma dhigtay murtiga waay ku soco basray ku soco ها مركا أريح حتى شيكوين كي مركا ما أنت ما عندهم منو وأنا لا مروح بان هاي وحدة ما فين sheeko سنة maaha ما haddeer فين huna سنة buraanburka ku soco يا hadda sheeko maaha buraanburkeenu وهذا kaa sugeynay ده برامبر كواكي ما وانا هاي هذا kii شيكو aanu ما kuu وضع dirnay ما هذا هذا الكم حاسة ولا بالعناية وياه Telefoonkaaga waaye telefoonaa ku soo galay deg soo laabo ها تليفونك وان شرى تليفونك وان شرى فيري مين كده waxaa قاعد samaysaa basra wax xidhaya intaas ka dhigta fur محافظة يمكن ذا الشيء بقى يمكن ما يسمع معلمينك إيه deji soo noqo basra soo noqo alla buraanburkeeda jecliya adduunka qof ka cod macaan ma jiro wallah buunbuun intaadeeday kabihiibada waxaan ku idhi waxaa ii sawiratay adoo intaad guursatay maaragtay aad khasaalada fodhiwanka dhar ku dhaqatay hoogayoo baay baa ii sawiran royalo isku adu waxaad ii joogsa habaarteen fahmi waysaa singleska alla ahayd ina xaaji mataana isaan kuu galaa xabiibti alla shakiiraaf dheeray kira sababta ii habaarteen fahmi waayaane maxaad ii habaarteen maashidaha way ku daawanaysaa baan koodhi kun jeer seeraha dawladda unbaad iska gelaysa waay waan ka baxay idima daawanaysaa maanta ilaahay amarkiisa su-aal ku baan ku dhaca weydiiyey khasaalad baan kugu duceeyey ku soco basraay ku soco ها مركا ده وحان ربنا فهمان ربا برامبركا مكي anigu aan su tiriyaan tiriyay mise ku kala doonaysaan cusub oo idinka idinku socda habeenkii xaalad miyaanan ku odhan waxaanu leenahay xaflada buraanbur noo soo diyaari oo royal aad usoo diyaarinaysid haye maadan igu odhan allah I'm deetana so sorry xafladii honey maadan I'm naga so sorry dhicin waan dhoofay dee meel kale waan dhoofo waxaan tegay sakaramiintaan tagnay marka muud kale aan galay qaraabii dad baan u kuba biisi baan noqday maalmaha I'm so sorry honey wallahi waan ka xumahay next time insha haa allah markaan waxyaalahana barbarto si wax loo turturana waan soo laba ridi doonaa dhacdhaca insha allah inaan fahmaan rabaa hadda sida loo waxiyo barto iga raalahaada dadka iyo odhanin naagta badweysana ameerika waa degan tahay haddii aan wixii aan weligiba gelin soo badan kama ahaanayo wixii laskaga haa baran runta kara moog haa dhib waa male in gacanta lagu hayo so anyway insha allah markii aad kale wax baadhi la qabo let me know channelkaygana waxaan rabaa inaan soo geliyo dhaqamadii guuray ee la iloobay ayaan bilaabayaa insha allah heesaha for example heesihii geela kuwa fardaha maamahayada kuwa kabdaha heesihii ilmaha ee la iloobay haweenku marka ilmaha u heysayaan ciyaalka heesooda yaraa ee loogu hees jiray waxaasan rayaan boodhka afuufo marka isoo raacraaca bil insha allah insha allah tacaala haddii aan leedin yaa aad iyo aad reer dee kana california tahay bahalka miyaa basraay haawna california jooga shaakire haa wiilku yaqaana hoos joogo waa reer california haa maasha allah san diego meel aan deganahay Mhm. waa golden state wiilku ma california jooga isagu mooy may maraykan bogan baan ku ogaa inuu gudihiisa joogo california iyo seerosidhista meeluu jooga garan maayo serosidist no california anuu joogaa hadduu yaqaano waan soo dhaweynayaa salaam yaa wiilka maasha allah waa wiil